مثلا marka dadku ay baxayaan oo kale Soomaalida iyo tahriibayaasha kale in hadii lacala la qabto kala ama badda laga soo celiyo kale inaan dadka la xirin Soomaalida laakiin Afghanistan iyo Syria iyo dadka kale la xirin dadka markay gudbayaan xogtiga ah oo kale ay gudbayaan inay wadanka ka baxaan oo kale inaysan boolisku ku sameyn baaritaan xooggan lacag ay tahay arkaan oo kale iska sidaayeen ama ay soo weydiin sharciyada ay leeyihiin booliska information hore waxa arintan hadda booliska way qofka taxi wadaagay ninka taxi wadaya wuxuu ahaa qof yaqaanay qaabka informationka sababta ah qof adiga ku yimid iyo meesha u socdo qof yaqaanay uu yahay sababta ah wuxuu garanayay meesha la marayo meesha la tagay iyo cid soo dirsatay أنا بقول كده لو في شاكل يلا نسقط لكن ده ككلا أنت لا يقع ما قرن كرمش أنا بقول كده لو في شاكل يعني زمان تركيا وعني بقول كنت يشدد ويلا ما قال عكوا عمي وإحنا الحين واحد كنت شفتان بدأ جريكا لمبر كلا نروح ليبيا ما قرن كلا لمبر كويسة لما تركيا ها وإحنا ولهن واتر جريكا كنت شفتان مثلا إحنا نحن ما نجريكا لحنيتا markaad Turkiga soo bixisay gurigaaga oo boorsadii wadada soo baxaysaa waxa soo maray meel oo booliisi wax joogan uma weydiina xagee u socotaa mid lagu dhahay waan safarkaaga saas ku soo wadanaysaa bacdina waduu Ilaahay ku guuleysaa saas ku soo baxaysaa horta waxay daba galaan midna ma arkin hadaa waxa arkaa doon hadda halkan leeso simeelay soo gashay dadkii saarnaayeen gaariga ayuu saarnaa qabtay way ogaadeen dadka inay safar yihiin ninka darwalka ahaa baa baxsaday كبعد ذلك قاري كدقين قاري مركدقين وأركن إسكتكين ممكن عيدا كها الصومالي بيحاول عن نكى أو قاري ودي سيدو نكى بصلاة أيين قاري اللي وش علي ساسي هذا نسافر كود بسيوتين إلى أنه كقولي وساقل